injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa maanta waxa uu shaaca ka qaaday inay jiraan qorshayaal Soomaaliland loogu sameeyo maamul goboleedyo ama lagaga dhex abuurayo gaar ahaan gobolada bari ee Soomaaliland. Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Puntland uu wado qorshayaashani Soomaaliland lagu kala qaybinayo waxaana hadaladiisi ka mid ahaa wax la sameeyay naleeyahay amin ee safar looga dhigay Addis Ababa Soomaaliya waxay madaxweyne ku xigeenkii hore Puntland Garowe ninkaas waxa meesha loo geeyay Soomaaliland oo qaso in Soomaaliland ka sameeyo jarjar shalay wuxuu la fariistay isaga wuxuu ka asumay ninkii uu qaabsanaa waqti inay Soomaaliya wada hadaladeeda Turkiga iyo isku geeyay markaan ninka leeyahay in la sameeyo wax la yiraahdo magaalada Said Naql State oo ah Sanaag iyo Khartoum oo ah Saudi Sanaag cayn taasaan ka iga laga soo ansixinay horena wuxuu casuumay ugaas Abdurashid ugaaska Samaroonka iyo Sultan Said sayid maasha baran ayuu ka casuumay iyo Fahdiyaas شوي أوكي أنا واحد سنة وصل سومالنا سلاح سوماليا روح شرا ولا قبله كود وبلد شيرين فتس لكن فتس يقول سو تقلي عدنا نوم أنا بيرنا واحد سو بجمع عن إهان واحد صباح أنا كخليا نور الكينة جله يا عن كل قول بالوقباي عن كل أي أبوك بسنة waxay la tahay aynu ka qaadno madaxa kor u qaadno mas'uuliyadda dibadda waxaynu ka maqanahay international area meelaha ma Soomaaliya oo ka maqanahay saaxiib qoro warkada ilma haysana adduunka ma haysano inuu isku meeraysanina وخضر إسماعيل محمد خضر نمر عبد الرحمن قعير ورك مقبهية عن قبض عصر فرتي في هرجيسة